Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xalqadeennii koowaad ee barnaamijka aan ugu magac darnay Musaafir, kaas oo aan kaga warrami doono waddamada caalamka intooda badan, annaga oo qaab safar ahaan ku mari doono, innaga oo halkeena joogno, kaas oo ka bixi doona channelka Somali hashtag, waxaana idinla socodsiin doono aniga oo ah Maxamed Ismaaciil. Haddii aad nagu cusub tahay, waxaana farxad gelinaysa inaad nagu soo biirto siina share garayso channelka. Haddaba inakeen aan bilownay safarkeena maalintiisii koowaad, waxaynu u kicitimi doonaa waddanka intiina badan aad garanaysaan ee Kenya. Diyaar ma tahay? Haddaba inakeen aan bilownay barnaamijkeena. Kenya oo sida rasmiga ah loo yaqaan Jamhuuriyadda Kenya waa waddan dhaca bariga Afrika, taasoo masaaxadda dhulkeeda yahay qiyaastii 50,000 oo kiiloomitir square in ka badan, taasoo ka dhigayso waddanka 48aad ee ugu weyn xagga dhulka. Waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool waddankan in ka badan 47.6 milyan oo dad ah, taasoo sidoo kale ka dhigayso waddanka 29aad ee ugu dadka badan. Caasimadda Kenya iyo magaalada ugu weyn waa Nairobi, halka magaalada ugu da'da weyn iyo caasimaddii hore ay tahay magaalo xeebeedka Mombasa. Laga soo bilaabo sanadkan 2020, Kenya waa dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan waddamada saxaraha ka hooseeya marka laga reebo Nigeria iyo South Africa. Kenya waxay waqooyiga xuduud kala leedahay Ethiopia, waqooyi galbeedna Koonfurta Suudaan, barigana Soomaaliya, galbeedkana Uganda, Tanzaniana koonfurta ayay xuduud kala leedahay, halka badweynta Indiyana ay ka xigto dhinaca koonfur bari. Gumaystaha Yurubiyaanka ayaa waddankan ku soo bilowday sanadkii 1500, inkastoo gumaysiga wax ku oolka ah uu bilowday qarnigii 19aad intii lagu guda jiray sahmintii Yurubiyaanka. Kenya waxay xornimadeeda qaadatay sanadkii 1963, kadib xornimadeedii waxay xubin ka noqotay waddamada loo yaqaan barwaaqo sooranka Commonwealth. Sidoo kale waxay hadda xubin toos ah ka tahay qaramada midoobay, bangiga adduunka, sanduuqa lacagaha adduunka, COMESA, maxkamadda dambiyada caalamiga ah iyo ururo kale oo caalami ah. Dhaqaalaha Kenya waa mid dhexdhexaad ah, taasoo ka dhigaysa waddanka ugu dhaqaalaha weyn bariga iyo bartamaha Afrika. Ilaha dhaqaale ee waddankan waxaa ka mid ah beeraha iyo caleynta shaaha, sidoo kale dalxiiska waa ilaha dhaqaale ee aadka u xooggan. Waxyaabo laga helay waddanka Kenya ayaa muujinaya in waddankan la deganaan jiray 20 milyan oo sano ka hore. Dadkii ugu horreeyay ee maanta degan Kenya waxaa la sheegaa in ay ahaayeen kooxo ugaarsato ah oo ku hadla luqadda Kuushka. Ka hor inta aysan Kenya xornimada qaadan, dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Kenya waxay codsadeen inaan lagu darin Kenya. Gumaystahana wuxuu go'aansaday inuu afti ka qaado dadkaas. Aftidii ugu horreysana waxay dhacday sanadkii 1962 si loo ogaado rabitaanka Soomaalida ee ku biiritaanka Kenya. Natiijadii aftidii waxay muujisay in 86% Soomaalida Kenya ku nool ay dooratay in ay ku biirto dowladdii Soomaaliya, laakiin maamulkii gumaystaha ayaa diiday oo Soomaalidii ku daray Kenya. Sidaa daraaddeed waxay ku hareen Kenya. Madaxweynihii ugu horreeyay iyo aasaasihii Kenya waxaa la oran jiray Jomo Kenyatta. Doorashadii ugu horreysayna waxay dhacday sanadkii 1957. Kenya waxaa ku nool dadyow kala duwan oo ay ka mid yihiin kooxaha jinsiyadaha iyo afafka ugu waaweyn Afrika. Waxaa jira qiyaastii 47 qowmiyadood oo kala duwan. Marka la fiiriyo dhanka diimaha, dadka reer Kenya ayaa la sheegaa inay ugu weyn tahay diinta Masiixiga ama Kiristaanka, taas oo ay haystaan 85.5% dadka dalkaas degan, halka Islaamku uu yahay diinta labaad ee ugu weyn dalkaas, kaas oo ay haystaan 10.9%, halka dadka aan diinta haysan ay waddankaas ka yihiin 1.6%. Intaas waxaa ku eg barnaamij yar oo kooban oo aan ka soo diyaariyay waddanka Kenya. Fadlan haddii aad nala soo gaartay dhammaadka, waxaa aad iyo aad inoo farxad gelinaysa inaad saaxiibkaa la wadaagto muuqaalkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.